dhakhtarkan ku geynayaa rumayso anigu waan fiicanahay in badan ayaan garanayaa anigu hadduu xanuun yar dareemo markiiba aniga wiisha waan ku baryayaa howrweyrin markaa arju beriya inaga mariya meeshan intaanay kuwii xabadda idinku dhuftay aanay inoo iman mar labaad haa inamari arjun soo baxdee بريم halkan istaag joog halkan istaag بريم aad baan u gaajoonayaa inaan halkaa wax ka cunaan rabaa ma waxaad isna joojisay imika wad mahadsan tahay ma ila cunaysaa may anu ma gaajoonayo arjun ma ila cunaysaa may wad mahadsantahay walaal ma baahni dhib ma laha idinku si wada sheekaysta anna ma soo raagay waan imanaya anigu ma rumaysan karo wax lagu qosla miyaan ahayn arjuno amiiradii dhammayd ee qasriga faraha ka taagtaagi jirtay ee cuntooyinka kale noocnooca cuni jirtay ayaa maanta doonaysa inay dabada wax ka cunto iyo harakoo doonato warninta maxaad ku soo samaysay macquul maaha si aad u soo bedeshay bremow beriyaa simraanteedii bay noqotay saaxiib simraantan kala sheekaysay tiray taatinka weeyaan maxaad tidhi arjun miyaad waalantay mise waad soo walatahay imika ma garanaysa horta waxaad ku hadlayso anigu waan hubaa inaad qaldan tahay samraan waa beriyaaya beryaana waa samraana macquul maaha waxaasi bremow runta ii sheeg makaa dhaba inaad ogeen inaanay simraan berya ahayn saaxiibadadii jaatinka weeyaan inantii aan jeclaa ee muddada badan aan ku riyoo jiray saaxiibkay bremow runta ii sheego makaa dhaba inaad ogeen inay iyadu beryaa tahay diyaar baanu ahay inaan saaxiibtinimadan ku dhaartay inaanay samraan ahayn iyadu xataa hadday tahayna anigu maan ogeyn inay iyadii tahay samraan haa macquul miyay tahay anigu inantii aan jeclaa inay tahay taad adigu jeclay lafteeda aqligal miyaa saaxiibtaasi waaye haddaad adigu waxbaan arrinkaa ka ogeen ifahansiiyo sidaysaan ku dhacday bal shino haddaan soo weydiinaya waan weliba u sheegayaa beryaa wax walba waan u sheegaya waxaan ku odhanaya anu facebooka kaalama hadli jirnay raaj ayaa kaala hadli jiray laakiin anigaa ku jecel sidoo kale waxaan u sheegaya inaad adigu aanad saaxiib keliya ahayn laakiin aad tahay walaalkay la dhashay ma fahantay sideedoo kale walaalkay aan jeclahay xinjirahaygii dhiiggaygii markaa waan u sheegayaa arjunow war kale caqlimaan kugu jirin inanta beryaa adigaad ku jeceshay haddaad xitaa u sheegtana aniga ima jecla oo wax jecelay ma qabto waayo labada cishan la noolaa anigu ayaan wax kasta ogaaday sida dhabta ay ku jeceshay markaan kaaga digay waxba inaan taa u sheegin maya arjun ma aamusi karo sideen u qaadan karaa inantii adigu aad jeclaan jirtay dee walaal ha ogaata sheekada xataa hadday cadhooto dhib ma laha iyada saasaa u fiican xataa hadday imika cadhooto hadhow waxay odhanaysaa breem wuu jecel yahay oo saasuu sameeyey taasina waa waajib inay ogaato maya breen haba yaraatay waxaad u sheegi kartaa ma jirto waana aniga go-aankayga ugu dambeeya waana amarkayga dhinac breem waa saaxiibkaygu qaaliya dhinaca kalena waxay iga taagan gabadhan adduunka ugu jeclaa beriya waa nolosheeda waa gabadhan inta badan sugayay isaguna markhaati u ku yeesdan u jeclaa beriya laakiin waan awoodaa inaan jacaylkayga horo si ay labadoodu farxad ugu noolaadaan oo nolosha ay wada qaataan ilaah waan ku baryayaa sabar sii si ay hawshan adag aniga iga dhammaato yaa rabbi anu si fiican baan ogahay inaad tahay qof naxariis badan kaaga darantana nacas xuna goona ah ood farxaddaada u hurayso saaxiibkaagan ku qiyaamayn weliba qofkaasina uu yahay saaxiibkaagii kuugu dhowaa ahna walaalkaagii kuugu dhowaa oo aanad doonayn marnaba inaad ka cadhaysiisa isaga dhegeyso bremow hadda beryaa way soo socotaa wayna haysaa wixii ina dhex marayna waxba ha u sheegin hadda laga bilaabana beryaa adiga qadarkaaga tahay oo jacaylkaaga rasmiga ay tahay saaxiib waanan kaaga sidoo kalena saaxiibkeed rumaad ah anu waxaan lahayn ma qaadan karo xaqan iska diidaya beryaa adiga ayaa u qalma adigaa iska leh kaxeeyo israaca idinku waan ku baryaa saaxiib aniga hadalkayga si fiican u maqal ma rabo inay iyadu qalbi jabto aniguna hadda laga bilaabo
cidna hadalkan u furfuray u sheegay habeeraatan ma jirto labadiina waa inaad wada jirtaan muhiimaddu intaa weeyaan waa inaad saa u dhaqsaa balna iskuursataan labadiina runtuna waa taas saaxiib maya way adagtay inaan khiyaamo arjuno dhegeysa bareemo saaxiib hadda laga bilaabo hadalkayga amar aniga iga soo baxay u qaado waqti xadarkana aniga amarkayga qaadaysa adiga iyo bareena waa la isku kiin abuuray ininkaana isla nolosha wada qaybsada maya arjuno fikirkaaga suu qaldan yahay ma macquul baa inaan wax kastoo tiraahdaa aan qaato oon weliba amarkaaga ku shaqeeyo aqli maaha waxaas sidaan hadda beriyaa runta ugu sheegi karaya iyo kala jooji bareemo arjun sidaad ii leedahay saaxiib hadalkaa sawdiga og inaana waxaad xaq u leedahay aanan weligaa anigu kaa qaadan adiga arjunow sideed ku rabtaa inaan anigu qaato waxa adiga adduunka kugu qaalisan war maxaad ka qabanaysaan labadiinana meesha gaadhiga fuulaana sambuuska gaadhigan ku dhex cunayaa labadiina waan idinka yaabayba sambuuska ila cuni weydaan sidoo kalena ma hadlaysaan waxa baan dareemayaaba inaad jeel igu wadaan oo aydan qasrigiiba igu wadeen qasrigaa tegaysa adiga wuxuu kula yahay jeel maya brimo hadda laga bilaabo jeelkii kama soo qaadayo hadda laga bilaabana hooyadii u ogolaan maayo inay mustaqbalkayga iyadoo ay go-aan ka gaadho haddii saa tahayna halkanaa baan ku degaya haddadaa jooji gaadhiga beriyaa bes dhegeyso waar bes baan ku waxaan maqlayaa ma jirto haddadaa halkaa igu dejiyaan uma tegay qasriga beriya oo khubariyaa dhegeyso kadib waxaa doonto samee bal haddaa ii dhegeysa uun ii sheeg maxaa jiran beriya anigoo adduunkan waxaan ku haystaa ma jiraan cid kalena ma haystoon ahayn arjuun iyo reerkooga mana aqaan kolley maskaxdayda wax badan baa ka guuxaya laakiin waxaan kaa rabaa inaad si fiican ii dhegeyso waxaan sidoo kale rabaa inaad oga in kelimad kastoon iminka ku leeyahay inay qalbigayga ka soo gooday horta ma og tahay markii aad ka soo baxday qasrigiina inay reerkiinnu aad kuugu warwareen ma og tahay mararka qaar marka lagu canaanto ee lagu dilo waxaad mooddaa inay reerkiinnu ku necab yihiin laakiin waxaas waa jacayl beriya mararka qaar jacaylka saayidka ay inoo qabaan reeraheennu wayna diiqad gelisaa oo waxaan isdhahnaa wayda necab yihiin laakiin arrintu saa maaha ibrahim anigu saa umaan jeedin marnaba waan ogahay taa laakiinse waxaan rabaa inaad reerkiina dayacin sababtoo ah ehelku waa nimco ilaahayna siiyey waxaana wanaagsan inaan reernaheena ilaashano beriya dhammaantood way ku jecel yihiin laakiin mushkiladda keliyay leeyihin waxa weeye iyagu saa'id ayay ku jecel yihiin beriyaaye sidaa darteed waxaa kaa rabaa inaad gurigii ku noqoto oo aad aragto aabbahaagii boqorka iyo hooyadaadii boqor tahay oo aad ka dalbatay inay ku saamaxaan waan ku baryayaa beriya waxaan kaa rabaa inaad saamax dalbato welibana hooyada aad ka dalbato anigu waxaas ma aqbali kara marnaba beriya hadalka bareemo waa sax reerkiinnii way ku warwarsan yihiin markaad qasrigaad ku noqotana waxa weeyaan adigoon cidna ku celin wakhtiguu kuu fiicnaanaya hooyadaana mar dambe ku dhibi mayso ku celi sidaa darteed waa inaad hooyadaa u tagtaa ood laabta gelisaa kana dalbataa inaa ku saamaxday aniga waxay la tahay arjuun hadalkiisu inuu u sax yahay kelmad kastuu yidhina ay sax tahay sidaa darteed ina mari brimow qasrigiiga inake waa sax beriya ma awoodaa inaan su-aalku weydiiyo hay weydii runta ii sheego maalmihii aad maqnayd intee in leeg baad ii xistay ma intaa mise intaa dee yaa waan ogahay beriyaa inaad ii xistay laakiinse aniguba intaad ii xistay in ka badan oo 10 kilomitir ayaan kuu xisay maxaa dhacay dee inaad ii joogto ma doonayn waa maxay saylanka ku galay maya brimow si la yaab leh ayaan kuugu xiisay anigu waryaa arjuunkan waalanoo u sheegday intaan u xiisay maxaa kaa siya bes dhib ma laha waan kula kaftamaya maxaa ku bes keliya waxun baan rabay inaan hubsado inaan maskaxdaada ku jiriyeen kale dee macnaha jeceshay
ugu dambayntii waa la yimi qasriga hay arjun ma waxaad rabtaa inaadan raacdo maya anigu waan iska tegey ها أرجون وينad gudaha soo gashaa waayo waxaan rabaa dadka dhan nooga sheekay saddexdii casho wanaageedii samaysay haa dadkii oo dhan wayna sugayaan arjuno anigu kumaan fahmin nabarka lugta kaaga yaala waa nabar aad u xun waxaa wanaagsan in aad dhakhtar u tagto haddii kale lugta gaangari baa kugu dhacayso riyaa ayaan qasriga geenaya kadib aan kuu soo noqonaya waaye waan kaasii horeynaya anigu walaal arjun waad mahadsantahay saaxiib beriyaa iyadoo nabad qabta ayay soo noqotay waana dee midaan kugu abaal hayno adigu imika tag naftaadana ilaali kuma ogolaanayo arjuno inaad qasriga soo gashood cagaha geliso waayo haddii ay beriyaa ku ammaanto anigu down baa noqonaya dhulka dee mana dareemayaan ahmiyadda sidii aan u soo celiyey beriyaa iyo wixii aan sameeyey guushii sidaa darteed kuma ogolaanaya inaad cagaha geliso waa inaad tagtaa xataa haddii aan ku qasbanahay inaan ku yeriyo adiga waana ka xumahay arjun ogtahay brimo saddexdaa casho maalmo wanaagsan bay ahaayeen noloshayda inta ka dhimana ma ilaawi doono adiguna sidoo kale soo maaha arjun hadda waxay gaadhay xilligaa tegi lahayd xataa hadday ku arkaan dhib iyo dhibaata ayaad la kulmaysa naftaada ilaali ha yidhi boqoradii kaali baan ku aaminad way soo noqotay way soo naaxday waliba abalka halayo eeg baan ku waryabo hadalka miyaad hubtaa ay rumaysan waa boqolkiiba boqol baan ku haddii warkaasi uu sax noqon waayo mashaakil baad la kulmaysaa boolow naanyey anu been baan ku sheegi karaa haddii aan been ku sheego arrinkan oo kale ciqaab baan kuri aniga ayaa indhahaya ku arkay albaabka ayay soo socdaan waan kuu xiisay abo soo dhoweynantaydii sidee tahay qoraxay haye markaan ku arkay ayaan wanaagsanaaday waxaan dhacayaa waa maqaladba aaway arjun talow xaguu aaday si uu xaqiiqada dadka ugu hor sheego mee talo isagii boqoradiyay balan aan dhexdii u galay weligay ma beenayn boqoradiyay inantaadii waa anigaa kuu keenay imikaba sida oo haddaanay ducadiinu nala socon adig iyo dee boqorka imikaba inantaasi may timaadeen oo amiiradda lama arkeen wax kasta oon u sameeyey si aan inantaada khatarta uga saari lahaa oon qasriga u keeni lahaa anigu waxaan awooday inaan wakhtigay ku habbooneed halkaasi tago oo aan afka dhimashada iyo geerida aan ka soo saaray inantaada weliba inantaada haddaad arki lahayd siday labadaa cisho isku beddeshay waxaabaad moodaa qof kale geesiyad bay noqotay jabhada laakiin waxaa halkaa ka muuqatay inaad weli u cabsanaysa iyada oo aad ka fakeraysa inay weliba mar kale kaa baxsato taasi waa midaan dhici karin ha ka yaabin baan quri beriyaa afkeeda ayay iga sheegtay inaanay mar dambe noqonayn maya brimo anigu hadalkamaan odhan marnaba arjun wanaagu ii sameeyey ayaa igu kaliftay inaan mar dambe qasriga ka bixin waayo arjun qof wanaagsan weeyaan in badanna wuu i caawiyey isagoo aabbow labadii cashe ee aan maqnaa arjun
adduunka wax aan qof loo sameyn oo wanaaga uu ii sameeyay sidoo kale waa ogtiin qasrigan inaanan weligay ka bixin oo aanan bannaanka arkin isagoo gaajoonaya ayuu cuntaysiin jiray حتى isagoo dhaawacan ayuu i daryeelay oo aanu iga tegin arjoonaagu ii sameeyay qof kale imaba sameeyeen aniga بريا ما حلقة حلقة هذا الكاس وكل كواد اللي يمكن قولي جباتي من قصر جباتي من تذكر لما كورشوا حتى ما تصل من محاد مع الهوية ذا وانكو سلامي بقردي ناني وفيعنا الله يدنا فانسيسين انت ير وحي سميسين غلط وين هاي waliba faansi hadalkeenu inuu saxaafada gaadhay oo ay wax xun iyo wax ka sii xunba ay nagaga sheekeeyeen waliba faansi ahmiyada qasrigan iyo awooyaashin dhaqankii wanaagsan ayaan kala hadhisan uga adkaan jirnay iyaduna ay si fudud dadka afka inoogu gelisay sharaftii qasrigan doqonimadeeda ayay ku burburisay oo waxay ula hadhay ma jirto oo sharaftayadii iyo waliba sumcadeedii ku ciyaartay markaasi waliba igu imanaysaa inay salaanto aniga waan qaldanaa markaan qasriga ku soo noqonay waxaan islahaa hooyada inuun ayay isbedelaysaa oo si fiican bay kula dhaqmaysaa laakiin adigu wali sidaadii ayaa tahay oo sidii aan kaaga tagay ayaa tahay waxna iskama bedelin xataa qasriga wayna caddahay inaan waxba isbedelayn anna waan rajaynayay inay isbedelaan بريا أنت هدي حتى هذوك اسمه بدلين لا يهدا بو مرك وراني قال سؤال لا يهديسو سنيوكي واحد سميسي وخلاص وقدام بين تصدح شوي مقنيت بريا واتها قد اسكسو نقطي walkan laabta gelin lahayd aad ku farxi lahayd ayaad adiguna infaadin oo iska fogeynaysa bal mar quriye iska iloo inaad tahay boqoradii gurigan oo iska xasuuso inteynad beriyaha hooyadeed tahay ehelkeedaynu nahay intaanaynu noqon dee boqor iyo boqorad waan iska saxsanahay soomaa ehelku waxa ay joogaan markay inantoodu ay sumcadooda ilaalinayso gurigooda ku ekaato laakiin amira bariya inantaydu ayadan waxdana inaga gelin ayaa qasrigan ka baxday heer ay gaadhayna ka fikri wada sumcadda iyo sharafta qasrigan iyo reerkan taasi waa sax laakiin maxaa dhacay maadilowday in wax inooga weyn aani jirin inaynu ilaalino sumcaddeena iyo qasrigeena bariyaana way ogtahay sidaad ogtahay boqoradii waad ogtahay muddadaas 18 sano ah noloshayda inta ka dhimanana arkin meel kale bannaankana aanan uga bixin qofna ima weydiinin waxa aan rabo iyo waxa aan ku riyoonayo intaba sharciga halkan ayaan ku barbaaray kuman barbaarin jacaylka hooyanimo iyo waliba naxariistaada miyaad ogtahay sababta boqoraday waliga intaad gacanteeda madaxa saartay iimaad naxariisan oo mar qura ismaad weydiinin indhahayga murugada ka muuqata iyo silaca waxa laygu oran jiray xidhiidhka ka dhexeeya inan iyo hooyadeed aad ayuu u qoto dheer yahay laakiin adiga taa kaama arkin macquul meetay hooyo inanteeda wejigeeda inay eegi kari weydo hooyaday hadda laga bilaabo waxaan rabaa noloshayda saan rabo inaan ugu noolaado sidaad ku awoodi kartaa inaad iga sii jeesato ma fahmin
hooyadaya hal mar ii eeg sidii inantii aad dhashay hay eega sidii boqoradda keliya i dareen kadibna waxaad ogaanaysaa cadhadu inaanay qalbigaaga ku sii jirayn mar keliya bes mar keliya uun tijaabi oo arag say wax kastaa u dhammaadaan waan ku baryayaa bal tijaabi uun